asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaan soo dhawaada kusoo dhawaada mahad axmed official ayaa toos nooga daawanaysiin iyo facebookeena mahad axmed cali ayaa si toos nooga daawanaysiin. sidii caadiga ah channelkan waxaan kusoo gudbinaa lifestyleka iyo maaragta nutritionka iyo qofku siduu jirkiisa runtii u qurxi lahaa. coaching free ah ayaa halkan ku sameynaa. meel kastood caalamka ka joogtana runtii adfayskaas ama taladaas waan ku siinaynaa insha allah biidnillahi alkariim. haddaba caaway waxa barnaamijka runtii marti iigu ah walaashay qamar oo runtii muddo 4 bilooda ka mid ahayd faamilka ama aan coach u ahaa. caawana aan runtii ku faraxsanahay isbedelkeeda iyo farxadeeda iyo quruxdeeda iyo maasha allah dee inay iyaduna exciting tahay aniguna aan la qaybsanayo. waxaan kaloon jeclaysanay labadeennuba inaan idinkana idinla qaybsano, maxaa yeelay ayada laftirkeeda ayaa waxay ku timid inay macnaha dad kaloo ayada ka horreeyey inay aragtay isbedelkooda. sidaa darteed sidaan oo kale waraysiyo hore ayaduna saas oo kale go-aan kusoo qaadatay. den processkii bilowday, coachingkia loo sameeyey, go-aankii qaadatay, maantana halkanay fadhidaa. runtii excitingkeeda iyo farxadeeda iyo runtii ayaan markaa jeclaysanay inaan la wadaagno, anigoo jeclaystay inaan dhowr su-aaloodoo kooban runtii weydiiyo si dad badan oo sideedoo kale ah ama maanta u baahan inay miisaankooda dhimaan hab caafimaada. si aan marar badanba maaragta aan ka hadlayba qaabo badan oo qofku miisaan u dhimi karaa, laakiin annagu waxaan qaadanay qaab miisaanna lagu dhimi karo, hab caafimaadna qofku u noolaa karo, jirkiisuna uu noqonayo jir qurux badan runtii. haddaba marka qamar ayaan soo dhaweynaya. runtii waxay joogtahay ku nooshay wadanka Germany, aniguna waxaan hadda aan joogaa wadanka Turkiga, laakiin Germanyna waan deganahay. qamar horta marka koowaad kusoo dhawow mahad axmed official. wax badan adigu muuqaalada halkan waad ka daawatay, caawase waxaan rajaynayaa dadku inay adiga marti ku yihiin. soo dhawow marka koowaad. maasha allah coach mahad aad ayaad umahadsan tahay, waan dhowahay, waana kaaga mahadcelinaya fursadan qaaliga aad isiisay. maasha allah waan dhowahay. maasha allah waan salaamaya adiga. maasha allah sidaasoo kale annaguna aad baan maaragta kaga mahad celinaynaa fursadan qaaliga adiguna aadna siisay runtii. su-aashayda koowaad marka waxay tahay horay ma u samaysay dhaayid ama miisaan dhimis? ma ku guulaysatay? ma ku guul daraysatay? maxaad kala kulantay? maxaad ka faa'iiday? su-aashaas markaan ku weydiinayo runtii dad badan ayay ayaguna saasoo kale u baahan maanta laga yaabaa inay wax kala baxaan. marka horey ma u samaysay inaad miisaankaaga dhinto? coach mahad haa, waan u suubiyey, weliba muddo dheer igu qaadatay. qiyaas markaan qiyaasay 4 bilood 5 bilood adi bishii 6aad anigoo ii socoto ama maxay ahayd ku bartay. marka waxaan ahaa dadkii ay isku taxaluujiyey in uu asaga coach isku noqdo, laakiin ku guuldaraystay oon coach la-aantiis wax u shaqeynay noqdaan. maasha allah. maxaad ka faa'iiday markaa programkaas adigu aad gaarigaaga isku waday oo adigu markaa maxaad se sameynaysay? maxaad cunaysay? maxaad resulti ka heshay? maxaa positive iyo negative maxaad kala kulantay? wallaahi coach qofka markuu coach isku yahay inuu nafsadiisa haleeyo mooye hadda wax u saxanayo ma laha. aniga gaas weynaan ka qaaday, xanuun badanaan ka qaaday. marka qof walba wuxuu kuu sheegaya waxaan caab waxaa fiican sinjibiisha, waxaa fiican tuunta, waxaa fiican cananaaska, waxa qofba qajaarka, waxaan tijaabin. marka aad cudurka ugu weynaan ka wax isbedela ama resulti ama miisaan inuu kaa dhaco waxba kama faa'iidin oon waxaas ahayn? maya wax miisaan iga dhacay because anaa ii timid adoo ma arag inaan xanuunka qaad. keliya wejigaasa iga baaba'ay, only aan sheegi karaa. wejigaasa iga dhammaaday bes, daal, tabardarri, anigiiyo warwareerahay, indhihii i madoobaaday. inuu wax iga dhacan aad iyo aad maasha waa saas wey. waa sax, dad badanaan ku arkay arrimahaas, waana ka hadlay muuqaalo badanoo horaan kasoo duubay waxyaabaha marka qofku miisaanka qaabo badan u dhimi karaa. laakiin waxa ugu muhiimsan waxay tahay qofku inuu hab caafimaad asagoo nafaqadiisii helaya, nutritionki jirkiisa u baahnaa, borotiinka u baahnaa, carbohydrate-ka u baahnaa, nafaqadii fitamiinaadka jirkiisu
markaa inuu biyaha u baahnaa hurdadii exercise wixii markaasuu qofku miisaan saxa dhimi karaa isagoo jirkiisuna caafimaad qabo. laakiin haddaad tiraa cuntada dhanaan iska dhaafaya maxaa kugu dhacaya miisaankii wuu kaa dhacaya laakiin adiguna dee maxaad noqonaysaa jirkaaga dhan wuxuu noqonayaa harag socda iyo balaq iyo meel absolute okay iyo skinkaaga iyo qorxoonaanin iyo indhihii ku godmado qof walba wuxuu leeyahay ma xanuunsato qof balwadana waad ekaanaysaa skinkaaga iyo madoobaanaya qaabkaaga iyo madoobaanaya laakiin hadda maasha allah tana shan caruur dhashay okay goormaad kusoo biirtay goormaad kusoo biirtay familka teamkayga ama Herbalife family bishii 12 sanadka hadda dhamaaday aan la go'saday ilaa hadda ku jiraan adigu waa bishii afraad programka adigu waxaad bilowday January bilowgeedii laakiin adigu bishii 12aad ugu soo biirtay intaan processka wadwadnay okay ma sha Allah imise kiilo ayaad ahayd waqtigaas 98 ayaan xoogaa kasii laakiin 98 adu 100 kiilo ahayd laakiin 98 halkan dadka u soo saari doona insha Allah si u arkaan باذن الله الكريم انا وقدال uga sheegi doona hadda inta aad tahay oo ku weydii doono dad badan is weydiinayaan su'aal baan marka rabaa inaan dadka maaragtay commentiga ku weydiiyo qamar imise kiilo ayaad ku qiyaasaysaa hadda waxay ku sheegtay inay 98 kiilo wax la socday ahayd ama ay 100 kiilo ka timid 4 bilood marka hadda maxay kula muuqataa commentiga noogu sheeg qiyaastaada iyo hadday is yeeshaan inta ay noqoto ma sha Allah su-aasha kaloon kusii weydiinayaa waxay tahay hore muu maqashay Herbalife maxaase ka aaminsaneed maxaase maaragtaa information ka haysay hore waa u maqlay weliba maasha Allah qofku waa dhaliilo badan yihiin Soomaalidu waa iska dhib badan yihiin qof walba markaa la tashto Herbalife ka war Herbalife waa Herbalife waa lagu jiraa Herbalife miisaan ma dhibo oo marka wallahi koojo maasha Allah qofka markuu dhadhamiyo uu dareemi karaa marka sidii aan ka aaminsanaa inta ku soo bandhigo adoo kooja inacaayo muddo dheer adigoo macnaha maqlayaad sinjibisha calays aamin darrada waa xunta aad ay xunta wallahi dad badan xaaladda maanta dad badan ayuu difaaca maanta ku jira insha Allah caawa ka soo bixi doona runtii marar badan waan soo waraystay dad sidaas oo kale ayaguna ahaa runtii xaqiiqatan YouTube-kay gadaal haddaa u raacdood ku arkaysaa insha Allah waxaan rabaa marka inaan ku weydiiyo dadkii horey kuu yaqaanay hadda maxaad kala kulantaa maadaama isbeddel kugu dhacay muddo yaroo kooban macnaha ma dadku dhiirigeliya ah oo kugu dhahaya maasha Allah qamar waad qurxoonaatay hore u soco maxaad samaysaa mase waa dad kugu dhahaya ma xanuunsatay ma cudur baa kugu dhacay oo ku sii niyad jabinaya sidii horead ku qurxooneed Soomaalidu inta badan waxaan experience-gayga 5 sano dad aan qarash iyo xoog iyo wax kasta iskugu geynay ayay wadada uga hor imaanayaan markaas waxay ku leeyihiin heblo maxaa kugu dhacay bismillaahir rahmaanir rahiim a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim ma xanuunsatay ma cudur kugu dhacay maxaa dhacay macnaha qofkii isbedel uu sameeyay runtii de qof miisaankiisu 100 ahaa maanta markuu 60 noqdo de runtii indhahaaga waxay yaqaaneen qofkii 100 kiilo ahaa marka Soomaalida waxa markiiba maaragtaa negative ka soo boodayo leh inuu qofkii xanuunsaday ama niyadda laga sii jabiyo marka adigu mala kulantay arrimahaas oo kale aniga waxay amaano mooyo wax ay caay ma arag sababta hilibkayga awal saayid ahaa oo qof walba wuxuu ilaahay qoraalay waa qurux badnaatay ha noqoto TikTok-gayga markaan dhigay ha noqoto Facebook-gayga state-kayga so aniga yaab isku faraxsan qofka markuu asaga isku faraxsan yahay umraayadiisa isku jeedo wuu dareemi karaa quruxdoo lahaa waagi hore dharka markaa gashatid fool xumaa ku noqonay qof weyn da-weyna kaa muuqatay so marka waxyaabaha ay cajiibka ah waxay tahay baa aniga dadka badanaa waxay dhahaan qamar wallahi waa qurux badnaatay saa ku sii soco marka aniga niyad ahaanaaba ku socdaaba wow ma sha Allah ma dad fiican aad heshay runtii dadkaagana ma asxaabtaadana waan u hambalyeynaya runtii qof kasta hadaad aragto maaragta qof noloshiisa wax ka bedelay
waxaan rabaa inaan markaas soomaalida aan runtii ku dhiirigeliyo inaad qofkaa ku dhiirigelisiin. maxuu sameynaa qofkii markaad ku dhiirigeliso inuu si fiican maaragtay noloshiisa usii bedelo, shaqadii uu qabtana uu ogaado inay ahayd wax wanaagsan. Okay, laakiin markaad niyadda qofkii ka jabiso runtii aad buu u niyad jabaya qofkii. laba maado mid sameynaya inuu give up ka sameeyo programkiisii iyo in uu noqdo qof adag oo hore wixiisii usii socdo dee fahansan dadka hadaladooda. su-aal kalaan rabaa inaan ku weydiiyo insha allah. su-aalaha aan ku weydiinayo waa su-aalaha dadku dabcan ku weydii lahaayeen. marka haddaba maadaama aad isbedel samaysay Qamarey, loona jeedo isbedelkaaga xaqiiqatan, su-aashu marka waxay tahay ma jeceshahay inaad dadka kale sii caawiso ood noqosho nutrition coach ama aad dadka coaching free u sameydo, advice siido cuntada iyo nafaqada iyo waxyaabaha dadku ay cunayaan si ay miisaankoodana u dhimaan, lifestyle-na ugu noolaadaan, aad ka caawiso oo talooyin siido? ma jeceshahay arrinkaas inaad markaas saas aad dadka kalena aad sii maaragta aad usii faa'iideyso? aad iyo aad ayaan u jeclahay, sababtoo ah marxaladda aniga taagnaay ayaa ahayd marxalad xun oo sababtoo ah ha noqoto culeys, ha noqoto qaabdarro, ha noqoto jirkaygii iyo dharkayga kusoo bixin yaa free maahane. wallahi waa iskugu dari lahaa fi sabiilillah. ya qof dhibana wow maasha allah, aad iyo aad u mahadsan tahay. maya Qamar, waad mahadsan tahay, waana kaaga mahad celinaya runtii. wax kastoo tareenin u baahan tahan insha allah diyaaran kuula ahay. arrintaasna hoosan ka xariiqnay insha allah. wix caawa ka dambeeya waa coach Qamar insha allah. su-aasha ay dadka dhan sugayaan dabcan commentiga way ku soo qoreen, qiyaastii waxay macnaha way soo qoreen ay way sheegeen. horta video cajiiba oo maalin dhaweed aan arkayay groupka soo dhigtay oo aad cabaayad weyn xirneed oo runtii ilmihii aad calooshaada ku gurtay, cabaayadiinoo dhanna ay qarsoontay mid mid uga soo baxayeen. videogaasna insha allah waan la wadaagaynaa insha allah haddaad naga ogolaato asxaabta say u arkaan. cajiib, dharkii aad wadatay oo dhan runtii isbedela ku dhac. marka qarash kale ayaad gelaysaa soo maaha hadda, oo waxa weye dhan haddii laba fiiriyana xoogaa dee dharkaagii dhan waa qashinkaad ku dari doontaa. aada weyn wallahi koojmahado hadda weliba markii camera laga arkay, markii live laga sii arkay kasii caata badanahay, sababtoo ah camerada moogtahay qofka bini-aadamka uu soo dhaweynaya xoogaa, laakiin realityga qofka markii ahaan loo arko maasha allah waaw. iidii dad badan ayaa aga maray, war Qamar maaha waxaani, war Qamar maahane. marka maasha allah qarash maahane. weliba 46 maalinta xirto kaamiradu waa saas. anigaba dad badan markay insha allah 6 maalinta xirtaa noo balana last waa LM meelahaas markaa ka ciyaara noo balana. okay su-aal kalaan ku weydiinayaa, macnaha aan ugu dambaysiinayo. hadda imise kiila ayaa tahay? halkeesa jeceshaa inaad gaarto oo hadafkaaga ee ugu dambeyn meesha aad jecesha inaad miisaankaaga ku celiso waa halkee? haddase imise kiilaa tahay maadaama 4 bilood aad ku jirtay? horta bishii u dambeysay runtii waxaan kugu hambalyeynayaa inaad gaashay kaalintii 2. hal qof baa runtii wiil iyo gabar iga horeeyay, saddexaadaan galane ka miisaan rid badnaa. wiilyaga kaalinta okay, waxaad riday adigu 8 kiilo iyo wax la jira maasha allah. hadda 77 soo dhawow. marka hadda imise kiilaa tahay? waana inaan sii wadaa rabaa. koojmahadan kaa dhex 27 markaa 100 dhexgale Herbalife laga faa'iido waxay tahay adigiyo rafaadin, adigiyo dhibaatoonin, adigiyo waxaan ku iri daalin, adigiyo baabi'in, wejiga ka baabi'in baa miisaankaaga kaa dhacay. haddana cajiib, adigiyo qurux badnaaday, waxaan ku iri skinkaaga lagu subkanayo. wallaahi make-up waa ka maarmaysaa, wax kasta waa ka maarmeedaa. marka Herbalife waxaan leeyahay walaalahay soo tijaabiye adinkana. waxawaaye aniga waa soo tijaabiyey, walaalahay baa tihiin. waxyaabaha waxawaaye qofka bini-aadanka waxaa fiican dhibanaha markuu wixii uu soo isticmaalay kadib buu niila wadaagi karaa adinka moogta. marka waxaan idin leeyahay keep going, hala socdo. aad iyo aad aad u mahadsan tahay Qamar Yuusuf
from Germany oo runtii caawa halkan interview aan kula yeeshay waxaan uga mahad celinayaa runtii waqtigeeda qaaliga oo ay maaragtaa na siisay xaqiiqatan idinkuna markaa waxaad ugu abaalgudiin inaad una soo ducaysiin insha allah una soo hambaliyeysiin runtii maxaa yeelay qof maaragtaa kula wadaagay meeshuu ka yimid iyo meeshuu joogo iyo meeshuu u socdo qamar waxay u socotaa 65 kiilo hadafkeeda marka wax yara uga dhiman waxaa hadda ay maraysaa 77 65 kiilo ayayna runtii doonaysaa marka 10 iyo adigu 10 kiilo is okay haday ka dhacdo labada bilood soo socota masha allah marka aad iyo aad qamar u mahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waa kaaga mahad celinaya waqtigaaga qaaliga insha allah waxaan sugaynaa anaguna dad badan oo aad runtii noloshooda wax ka bedesho oo insha allah muuqaalkan markay caawa daawadaan dib kula soo xiriiri doona insha allah kadibna aad kood garay doonto insha allah bismillahi kariim aad iyo aad u mahadsan tahay dhammaan dadka halkan eega daawanaya muuqaalka inaad dadka la sii wadaagtiin asxaabtiina ayaan idinka codsanayna insha allah channelkana hadduu yahay markii kugu horreysay aad subscribe saarato lana socotan runtii muuqaalada maaragta aan soo gelinayno like na saar insha allah liked waxyaaba badan inaga caawinaysaa aad iyo aad u mahadsantiin insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu